waxaan rabaa inaan wax yar oo waxyaalaha dhibaatooyinka ee kala qaybinta bulshada xaqiraada ummadda ee Mustafa uu ka dhex wada xataa even xisbiga uu ka dhex tirsan yahay inaan wax yar soo hadal qaado magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida waxa lagu dhajiyay board ay ku qoran tahay hogaaminta sare ee DDS ama deegaanka Soomaalida 14 nin baa lagu soo qoray waxa ku jiray Mustafa Aadan Faarax Axmed Shide madaxweyne ku xigeenka wasiirka waxbarashada biyaha ka madaxtooyada kan howlaha guud 14 raga ayaa lagu soo dhajiyay darbiyada iyo koobaha laga soo galay magaalada Jigjiga shacabka Soomaalidu ama deegaanka Soomaalidu waxay in badan su'aal iska weydiiyeen macnaha ku duugan hogaaminta sare deegaanka sababta laga dan lahaa sababta waxa weeye loogu isha lagu dhajiyay magaalada Jigjiga waayo Mustafa Dhagax Buur buu ka sharaxan yahay ina hurre wuxuu ka sharaxan yahay qabri dahar ina faatax dhooweyn buu ka sharaxan yahay ina ciil qabri bayax buu ka sharaxan yahay marka sababta keentay in Jigjiga lagu soo dhajiyo iyo shacabku su'aal iska weydiinayeen anu marka su'aasha ma socdo su'aashaas oo ma socdo waa kulli su'aal guud oo common haddana waxaan maqlayaa way wada fujiyaanba وحتى way adkeysan waayeen inay ilaa ayaga soo daawacday dhaqaalaha kaga baxay mabdacad baa la geeyay xoolihii umada lagu soo daawacay way u adkeysan waayeen inay ku saayaan markaas haddana wada fujiyeen su'aal baan rabaa halka inaan ka weydiiyo marka ii sheeg Mustafa cunfiga iyo qabyaalada iyo xumaanta iyo naxliga umada ku dhex wado yaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan su'aal weydiiyo isagana aan su'aal weydiiyo su'aasha waxay salka ku haysaa federaalka waxa inooga mid ah Axmed Shide Aadan Faarax iyo ninka la yiraahdo Cabdiwaasac Bade iyo gabadha la yiraahdo Filsan Abdullah saddexdii kale rag ahayd Mustafa uu ku soo dhaji laakiin Filsan wuu ka reebay hogaaminta sare ee deegaankana waa lagu qoray ama hogaaminta sare ee deegaanka ha noqoto ama xisbiga ha noqoto iyaga laftigooda federaalka kamid ah iyo kuwa kale oo ka simida waxa weeye kuwa deegaanka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida markii loo bedelay BB ma jirin shaacin rasmi oo la sameeyo la yiri intan waa hogaaminta sare ee deegaanka sababta keentay marka in kuwii federaalka inagu matalahayena lagu soo daro Filsan oo ah gabadh yar Soomaaliyada wax baratay ah shakhsiga kaliya ee gabadha ee Soomaali ee xukuumadda federaalka ka tirsan ee title wasiirnimo hayo meeshii aan ku faan lahayn aan ku farxi lahayn aan soo dhaweyn lahayn oo mashxarada lahayn aan kursiga aan ku fadhino oo ka kici lahayn ee Mustafa markay Jigjiga imaato ku soo dhaweyn lahaa waan ognahay waxa ogeyd ee taakol iyo caqabad iyo hor istaag iyo cunaqabatayn iyo kan uu ku sameeyay waan ognahay magacaabisteedii iyo waxa weeye shacabka Soomaalidu way ka daragsan yihiin intii dhibaato uu sameeyay waa gabadh yar oo adeertii ah feeri hadda wax baratay aqoon yahanada xirfadeedii iyo kartideedii iyo aqoonteedana kursiga ku tagtay anu marka waxaan garan waayay maadaama Mustafa markuu shacabka ahaa terminology-ga erayada qoraaladu inala wadaagahay ay ahaayeen nogob iyo erar oo ay Filsan ka soo jeedo waa oraalka la dhaho Black Mountain waa oraalada oraalka ugu adag burburin weey haduu biyo ku dhaco iyo haduu buur ka dhacan burburin weey adag weey ciidamada military way isticmaalaan Mustafa marka wuxuu dhigi jiray uu ku faafin jiray baraha bulshada waxa kamid ah erar iyo nogob dadka degan waa waxa weeye ii sheeg waa Black Mountain oral Black Mountain weey waa askar weey waa dad front line-ka marka la geeyo weey aqoon-yahan male mid wax bartay male engineer male doctor male siyaasi male yaani afkaartii uu Mustafa mar walba markuu shacabka ah uu banaanka la taagnaa weey haddaan shalay dhahaydin marka wuxuu ku mucaaradaya Cabdiilay kula dagaalamaya maanta waxa soo baxday in aysan wax ku mucaarad iyo Cabdiilay kula dagaalan baysan ahayn ay ka ahayd ba Mustafa ra'yi iyo aqli iyo rabitaan iyo go'aan asagu gaaray in dadka shacabka ah goobahaasi degan uu si khaas ah xukuumadda iyo maamulka iyo nidaamka dawliga uga takooro kuwooda kamid kaana uu cunaqabateeyo
kuwaba kamid kaana uu cunaqabateeyo sababta keentay marka in waxa weeye filsan hogaamintii sare ee xisbiga meesha uu ku soo dhajistay Mustafa isla xisbigiisa ahayd in uu ku soo dari waayo sababta keentay yaa waxay kamid tahay in uu qabo wali ra'yiga dadkaasi waa uraalkii Black Mountain-ka waa askartii waa dadka front line-ka taagnaa aqoonyahan iyo ganacsaday dad wax bartay ma leh gabadhan marka uu la yaaban yahay fiir hada uu la yaaban yahay wuxuu leeyahay xagee ka imaatay xagee wax ku soo baratay siyaasadda xagee ka gashay wuu u quuri laayay waa meeshu gabadha walaashii ah uu soo dhaweyn lahaa uu ixtiraami lahaa uu wanaajin lahaa bal fiiri ninka noocaas marka yaa maanta inaga deegaankeena hogaaminayo yaa raba intuu doorasho galo inuu madaxweyne 5 sano dambe u soo istaago sideen ku aqbalaa marka sideen ku yeelaa marka waa shakhsiga noocaas marka way shakhsiga maanta raba inuu madaxweyne noqdo deegaankan sii hogaamiyo yani inuu madaxweyne noqdo Mustafa ma aysan ahayn rabitaankiisa ma aysan ahayn xulashadiisa by mistake bay ahayd khaladka kaliya shacabka Soomaalida laga galay bay ahayd ihaanada kaliya loo geystay shacabka Soomaalida waxa kamid ahayd Mustafa oo u xifaaltamaya sidii gabadh yar oo foodlay ah fiiri gabdhaha yararka markay waxa weeye ay stage-kan adolescence-ga waxa lagu dhaqan gaarka markay marayaan waa wax xuruuf badan oo dagaal fara badan oo waxa weeye qofka arkaan candhuuf ku tufo qofka xasarad iyo dagaal iyo qajajac iyo waxa weeye maanta dhan kama baxaan Mustafa marka stage-kaas aan ku qiimeyn karnaa ninka dhan ee xukuumadda deegaanka Soomaalida hogaaminayo stage-kaas aan ku qiimeyn karnaa asaga dhanba gabadh walaashii oo wax baratay ninka takooraya cunsureedeynaya xataa boorarkii uu dhaqaalaha ku bixinayay miisaaniyada shacabka umadu ay lahayd uu ku bixinayay waxa weeye tabeelayaashii caasimada lagu soo dhajinayo ku dhajin waaye ku dari waaye weeye ninka maanta inuu hortaagan berrina rabo inuu 5 sano dambe sii hogaamiyo anu mid baan idin sheegi marka shacabka Soomaalidu ma aha kaliya goboladan erar iyo nagab ma aha Mustafa ma aaminsano inay dad shacaba oo qiim leh oo sharaf leh oo gob ah oo nasab ah ay deegaanka ku nool yihiin ma aaminsano wuxuu aaminsan yahay dadkan inuu asagu waxa weeye gacanta ku haysto bal aan su'aalida weydiiyay ninka saa u xifaaltamahayo ee xinkaas iyo nacaybka inta le ku jiro hadduu inagu heli lahaa ka warrama fursad deegaankeena ay ka jiraan jabhadii hubaysnaa oo maanta ay xabad ka socoto dhagax buur oo xabad ay ka socoto qabridaha oo xabad ay ka socoto waxa weeye Shabeelle oo xabad ay ka socoto Nagab Yeer oo xabad ay ka socoto Doollo oo nidaamkii jamhadaha ay ersiga ah uu deegaankeena ka jiro bal sidoo u dhaqmi lahaa isweydiiya ninka yiri layla ma hadli karo waxba liigama sheegi karo layma dhaliili karo dadku isuma imaan karaan qof hadli kara ma jiro adeegsan hayo warbaahintii xabashida dhaqaalaha ku bixinayo leh kaniisada la weeraraya leh masaajid baa la weeraraya maanta ay u xidhan yihiin aqligii iyo aqoonyahankii iyo garaadkii iyo odayaashii deegaanka Soomaalida u lahaa ee xabsiyada ay uga buuxaan bal ka warrama hadduu inagu heli lahaa fursad ay jiraan jamhada dagaalamayo hubaysan waxaan dhihi karnaa qof nool oo deegaanka Soomaalida ku nool laba arkeenba ilaahi baan xilliga Mustafa nagu keenin alxamdulillah ilaahi baan nagu keenin xilli jamhada ay deegaankeena ka jiraan xilli jamhadaha deegaankeenu ka jira ay ku shabadaysan yihiin argagixisanimo abdi baan noqon lahaa farda lagu carar abdi baan noqon lahaa baraf abdi baan noqon lahaa geed har weyn oo qabow oo la harsado hadduu fursadda Mustafa inagu heli lahaa innaga marka ka shacab ahaan abdi xilligu kursiga ku cusbaa meelaha yarar buu ka adeeganayay markuu laakiin doorasho galay 5 sano inay waxa weeye sugaysa ogaaday saldhig ku fadhiistay dadkii wuxuu ka dhigay miduu dilo miduu xiro miduu bahdilo mid la kufsado mid la barakiciyo mid la ihaaneeyo mid xumaan oo dhan lagu sameeyo Mustafa oo kusima ah oo by mistake iyo si khalad ah oo ihaano oo gafa deegaankeena madaxweyne ooga noqday xilli kala guur ah isagoon xubin baarlamaan ahayn oo tashi lala sameeyay ra'iisul wasaaraha iyo dadkii asaga ku hareereysnaa
iyo dadkii Soomaaliyeed odayaasha ahaa oo u arkahaya maadaama uu nin activist ah oo qoraal Facebook-yada ku qoro hinti fiican ama muuqaal fiican aysan ka haysan ay kula tala bixiyeen inuu deegaanka maamulo hadduu acting ama interim ama waxa weeye isha kusima ka baxo oo 5 sano oo horjeeda uu helo inuu deegaankan sii maamulo dhibaato intee leeg iyo dhurbaaxa intee leeg iyo ihaana intee leeg iyo barakicin intee leeg buu shacabkan u geysan karaa waa waxaan wada qiyaasi karro way waxa maanta ku haysiya dhibaatada ku haystay qaabkay ku haysato haddaadan maanta ku xisaabtamaynadan ogeyn berri waxa kugu dhacay kuma xisaabtami kartid ninka maanta marka waxa weeye u dhaqmahaya sidii gabadh yar oo foodley ah oo qaangaadhayso ee dadkii wada haruufahayo ee dadkii wada xidhahayo ee kuwa boorar xataa waxa weeye kharash ku baxayo meel lagu dhijiyay ka reebahayo ee shalay aaminsanaa gobol hebel in dadka ku nool yihiin Ural Black Mountain ee aaminsanaa inay askari yihiin ee aaminsanaa inay dadku noolayn hadduu 5 sano oo rasmi ah inuu helo balka warraba dadku marka way inay u diyaar garoobaan in la xidho in la laayo dhiigooda la banaysto in la barakiciyo dhulkooda laga barakiciyo in la ihaaneeyo in waxa weeye xumaan iyo fuxshi oo dhan lagu sameeyo dadku u diyaar garoobaan Mustafa waa shakhsigan ogeyn ee 3 sano ee kursiga uu joogay emphasize gareynaya ama ka shaqeynaya ama warbaahin kasta oo qoomiyadaha kale wadanka in la degan ay leeyihiin kala ciidanka liyu booliska hala tirtiro khalad baa lagu sameeyay hala baabi'iyo sidan hal lagu sameeyo berrishan sano markuu inuu helana si rasmi u baabini inuu ma si joogayaan waxba yeena waxa weeye bidhaantoodan iyo aragoodan yeena ku xisaabtamin wuu baabi'in wuu tirtiri waa xaqiiqo waa dhab qof kasta aaminsan ninka maanta u adkaysan la Mustafa waad khaldan tahay iyo meeshaasaad ku khaldan tahay iyo shacabku sidan ma rabaan ee dadkii ku xidhiidhayo ee 6 saac habeenimo guriyaha ugu daadanhayo ee 9 saac habeenimo guriyaha ugu daadanhayo ee masaajidda kala soo baxayo ee guriyaha ciidanka ku weerarayo 5 sano oo madaxweyne yahay og yahay inuu madaxweyne yahay hadduu helo dhibaatada uu sameyn karo de wax la qiyaasi karo iyo wuxuu qalbi qaban karo iyo waxay ishu isha tilmaami karta mid maskaxdeenu waxay tilmaami karta ma aha shacabku marka waa inay tashadaan anigu intaan soo jeedinayo waxa weeye Mustafa haddaad nagu xidhay haddaadan nagu xidhayninba haddaad nagu eersanay haddaadan nagu eersanayninba waan sheegaynaa waa waajibna saaran waan ku celinaynaa maanta dhahaynaa berri baan dhahaynaa haddaadna xidhana maalintaadna soo daysaan sii bilaabaynaa shacabku ha tashado aayihiisa ha ka tashado mustaqbalkiisa ha ka tashado jiritaankiisa ha ka tashado dadnimadiisa ha ka tashado deegaannimadiisa ha ka tashado dadku from qabaleha laga soo bilaabo tuuladu ha tashato oo qabaleegu ha tashado oo sandarku ha tashado oo degmadu ha tashato oo gobolku ha tashado oo caasimadu ha tashato oo bulshada si guud inta iskugu imaato war aayaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo jiritaankeeda ha ka tashato oo ninkan ina maamulahayo xal inooma aha anu runtan sheegi Mustafa xal nooma aha nama maamuli karo masiirkanaga kuma aamini karo mustaqbalkanaga kuma aamini karo jiritaankanaga kuma aamini karo deegaan ahaantanaga kuma aamini karo waxaan aaminsanahay hadii Mustafa uu 5 sano nagu seelo deegaanka Soomaaliya inuu burburin doono inuu tirtiri doono ninka 25 degmo ka noqday maalin dhaweyto yaa waxa la yiri xafiiska hawlaha guud yaa wuxuu soo diyaariyay darajasiinta magaalooyinka yuu soo diyaariyay markaas waxa la rabaa in isku darajo laga dhigo fiiriya hadda degmo 1 kilomitir oo isku weer haysato laakiin aan lahayn jid iyo irid laga galo sideedaba aan lahayn oo gaari uusan gali karin oo nidaam dawli ah iyo aasaartii dawladnimada aysan ka muuqanin yaa waxa la rabaa in lagu garab lifaaqo qabale xuduud ku yaalo yaa la rabaa in lagu lifaaqo la dhaho kana dakhligaas ka soo xaroodo degmadana dakhliga kama soo xaroodo sida daraaddeed degmadan hal la burburiyo oo qabaleegan degmaha laga dhigo waad ogaan doontaan degmooyinka hadda jira ee deegaanka waxa imaan doonta ra'yi ah dhoobo weyn iyo shiraabaha la isku daro
shaygoosh iyo qabridahar ha la isku daro meesha la dhaho dannood iyo daraatoole iyo lehel iyo cub ha la isku daro galxamur iyo booq iyo galaadi ha la isku daro dhanaan iyo goday ha la isku daro cadaadli iyo qalaafe iyo mustaxiil cadaadli iyo qalaafe ha la isku daro mustaxiil iyo fayfeer ha la isku daro godgod iyo qooxla ha la isku daro hargeelle iyo meesha la dhaho waxaa weeye jarati ha la isku daro oo hal degme ha isku noqdaano inuu Mustafa keeno ninka 25 degme ka noqday inuu ra'yiga noocaas keeno fiiq iyo xamaraha la isku daro laghidiya salaxada la isku daro fiiriya hada birqod iyo meesha la dhaho la isku daro dhagax madow awaar iyo dhagax bur ha la isku soo celiyo oo even degmooyinkii aan haysanay hala sii burburiyo aqliga ninka keenay inuu 25 degme ka noqdo birrina wax ka daran ba ka iman doono waxa iman doonto inuu dhaho qabridahar ma mudna council iyo maamul magaalo oo goday ma mudna council iyo maamul magaalo iyo wax ka sii daran yaa iman doonto waayo 25 degmo oo maamulkoodii leh oo nidaamkoodii leh oo structure-koodii leh you see yani bulshada iyadoo la tashanin oo la fiirsanaya kaliya xilliga doorashada ayaa laga noqday ilaa maanta aan joognana laguma qancin karo sababta looga noqday